booliska gobolka Afdheer oo kaashanaya shacabka ku dhaqan degmada Jarrate ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah gorgor la sheegay in dhawaan lagu arkay degmooyinka gobolka Afdheer. Komishineerka komishinka gobolka Afdheer gaashaanle dhexe Cabdi Ibraahin Cabdi oo aan waraysi la yeelanay ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen galeyd la sheegay inuu halis ku yahay bulshada ku dhaqan gobolka gaar ahaan degmada Jarrate iyo Hargeysa. Waana kan komishineerka oo naga warbixinaya habkii loo soo qabtay iyo dhibaatada uu geystay ilaa iyo hadda. dan waxyar faahfaahin idinka siiyo xaaladda haadka waxaa jirtay deegaanka awaamirna laga soo siiyay oo la yiri shacabka in laga wacyigeliyo xaaladda haadka oo dhibaatooyin badan uu ku sameeyay gobolka deegaankeena degmooyin kamid ah. kadib annaguna 9 degmo ayaan wacyigelin ballaaran u siinay. kadib waxaa dhacday degmada Jarrate meel 2 kiiloomitir u jirto beer ku taalo inuu ku soo weeraray dhalinyaro joogtay oo 6 ahayd. dhalinyaradii marka waxay sameysay mid buu saddex dharbaaxa ku dhuftay wuu dhacay asagoo kii kor taagan buu kii ku kale kabad ku dadeen kabad macallinkii sidii waa lagu soo qabtay oo la keenay. kadibna waa kan hadda annaguna deegaankan u gudbinay deegaankuna wuxuu yiri hal soo gudbiyo waa kan aan guriga u sameynay oo hadda qaabkii aan ku qaadi lahayn ma rabnaa inaan. dhanka kale mas'uulka ayaa sheegay in gorgorkan lagu arkay degmooyinka Jarrate iyo Hargeysa balse ilaa iyo hadda inta ay xogta ku hayaan uu geysan khasaare badan ayna tahay markii ugu horeysay ee lagu arkay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Afdheer. waa markii ugu horeysay oo lagu arkay intii naloo soo gudbiyo awaamirta heer deegaan ka hor ma jirindii. haddana maanta waxa lagu sheegay meel Hargeysa ka tirsan oo adu 3 kiiloomitir ah yaana lagu sheegay ciidan baan u dirnay welina wax natiijo ay wax ay arkeen ma laha laakiin xalay waxa lagu sheegay meel xaafadahan gaarka may weli laakiin degmada Hargeysa meel ka tirsan oo baadiya inuu kurayar uu 3 jeer dharbaaxay oo qoftii dhashay ay isku daday oo markii kadibna ciidan markaan u bixinayn uu ka boobay mooyana wax khatar oo hadda ugu weyn ma laha laakiin khatarta ugu weyneed kana iska laha ninbuu dameerkiisii asoo wato 5 jeer markuu dharbaaxay baa lagu dul qabtay baa asoo ku dul degan. wiilashu waxay sheegeen in maalintii beerta casarkii hore in uu haadkan uu ka yimid xagga iyo xaggan doolo wadadeeda inuu ka yimid oo geedka weyn ay degan yihiin oo wiilashu ku weerari doono inuu soo dul degay habeenkii oo dhan inuu dul deganaa. maalintii subaxdii inuu beerta meel ku taal bakayle yaalay inuu cunay bakaylihii markuu ka dhargay inuu haddana geedkii uu ku noqday geedkii markuu ku noqday geedka agtiisa dameer ku xirteen wiilashu. wiil ka mid ah ayaa wuxuu damcay geedkii inuu dameerkii ka soo furo dagaalka halkaas ka bilowday geedkii intuu ka soo booday buu 3 dharbaaxa ku dhuftay marka wuu kufay wiilkii markuu ku dul fariistayna kabadii bay ku dul qabteen. haadkan dahad jiray ma ahaan hadduu jirayna ku waxyeelo sameyn jiray ma ahaan marka waa wax deegaanka ku cusub. sidoo kale komishineerka ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka Afdheer inay ka digtoonaadaan isla markaana ay ka taxadiraan dhibaatooyinka iyo halista u geysan kara bulshada gaar ahaan carruurta sidoo kalena ay soo wargeliyaan booliska haddii ay arkaan. bulshada waxaan u daaqi lahaa gobolka Afdheer 9 degmo inay iska ilaaliyaan xaaladdan khatarta ah ee dhanka haadka ah hadday arkaan meel alla meesha u dhow ee saldhig ah inay u soo sheegaan ayaan ku wacyigelinayaa. haddaba gorgorkani oo dhawaan lagu arkay qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka sida degmada Gaashaamo Hargeysa iyo Jarrate ayaa ilaa iyo hadda sida xogta lagu hayo dilay 1 qof isagoona dad badan isu dayay inuu weeraro isla markaana uu dhaawac u geysto. Nimcaan Axmed SRTV Hargeysa.